howlgalla culus oo ciidanka nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ay fuliyeen ayaa xalay ka dhacay degmooyinka Howlwadaag, Warta Nabad, Yaaqshiid iyo Kaaraan iyo qaybo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Howlgalladan ayaa ka dambeeyay cabasho ka timid dad ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho ku nool, kuwaas oo ka cabanayay tuugo xilliyada habeenkii dhac u geysanaya. Intii lagu guda jiray howlgalladii xalay laga fuliyay degmooyinka Muqdisho, waxaa lagu soo qabtay kooxo wata mindiyo, baangado, bastoolado iyo agab kale oo dadka shacabka ay dhibaato u geysan jireen. Tali Warbac oo howlgalkan hogaaminaya ayaa sheegay in dadkan ay soo qabteen ay gudbinayaan booliiska si baaritaano dheer loogu sameeyo. Taliyaha hay'adda NISA ee gobolka Banaadir Muxiidiin Warbac Shadoor oo howlgalkii xalay hogaaminaya ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadkii ka cabanayay tuugada dhaca u geysatay. Taliyaha ayaa dadkii uu la kulmay waxa uu u sheegay in ciidamadu ay wadaan howlgallo ka dhan ah tuugada, isla markaana ay go'an tahay in hadda kadib gacanta lagu soo dhigo qof kasta oo qalqal galiya amniga magaalada.